ma garanaysaa magaalada qaniga ah ee daashatay qaraxyada iyo daryanka rasaasta. ma ogtahay inay ahayd marinka dhaqaale ee Afrika ugu muhiimsan. ma ogtahay inay tahay magaaladii ugu horeysay ee laga yigleelay xarunta ugu weyn Islaamka ee Afrika. kaga bogo barnaamijka dhexdiisa anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinaya ka hor intaan u gadagalin faahfaahin. subscribe saaro channelka lana wadaag saaxiibadaada. mahadsanid. muqdisho oo deegaan ahaan loo garanog yahay xamar waa magaalada ugu weyn ee caasimadda u ah wadanka Soomaaliya. sanado badan muqdisho waxa ay u shaqeynaysay sidii magaaladii hore ee caanka ahayd Beledul Barbar ama dhulkii barbarinta, iyada oo intii af Carabiga ku hadlaysay loogu magac daray kadib booqashadiisii magaalada Muqdisho taariikhyahankii reer Suuriya ee qarnigii 12aad Yaquut al-Hamawi oo ahaa adoon hore oo asal ahaan ka soo jeeday bulshooyinka Gariiga ayaa qoray taariikh caalami ah. meelo badan ee uu booqday oo ay ku jirto magaalada Muqdisho oo uu ugu yeeray waa magaalada ugu qanisan uguna awoodda badan gobolka. waxa uu ku tilmaamay inay tahay xaruntii Islaamiga ee ugu horeysay ee laga yigleelay badweynta Hindiya qoraantii qarnigii 13aad. Muqdisho oo ay weheliyaan magaalooyin kale ee Soomaaliya ee dhaca dhinaca xeebaha dalka iyo gudaha koonfurta Soomaaliya iyo bariga Abyssinia waa magacii hore ee dalka maanta loo garanog yahay Itoobiya. waxay ahayd magaca boqortooyadii ka arriminaysay dalkaasi. waxaa la aasaasay qarnigii waxa ay magaalooyinkaasi soo hoosgaleen maamulka suldaanka Ajuuraan, waxayna la kulmeen casrigii dahabiga ah ama Golden Age-ta. sanadihii 1500 magaalada Muqdisho ma lahayn dawlad, waxayna noqotay magaalo dhammaystiran oo hoos timaada boqortooyadii Ajuuraan. qoys Ajuuraan ah ayaa magaalada ka aasaasay boqortooyo. sidaas darteed waxa isku biiray laba hay-adood. 350 sano ayayna socotay. nasiibkii magaalooyinka ee gudaha koonfurta Soomaaliya iyo dhinaca xeebaha dhaca ayaa noqday hantidii Soomaaliya. intii uu socdaalka ku jiray Ibn Saacid al-Maghribi 1213 iyo 1286 waxa uu xusay in magaalada Muqdisho ay durba noqotay xarunta ugu horeysay Islaamka ee badweynta Hindiya. Muqdisho waa magaalo taariikhi ah. miraha muruge macaan muuqiyo milisiga haboon habeenkii ilaa iyo mirdhexe dadku wada maadsadaan waqtigii musaafirkii reer Morocco Ibn Battuta uu ka soo muuqday xeebaha Soomaaliya 1331 magaaladu waxa ay ku sugnayd barwaaqadeeda. waa magaalada Muqdisho. waxa uu ku tilmaamay magaalada Muqdisho inay tahay magaalo aad iyo aad u weyn oo leh ganacsato badan oo hodan ah, taas oo caan ku ahayd dhar tayo sare leh oo ay u dhoofiso Masar iyo meelo kale. marbaan Afrika waa ahaa quwada wax muqooniso anigu ka masuulaha wixii tala meel la dhigo. waxaa kale uu sharaxayaa soo dhaweynta iyo martisoorka dadka Muqdisho iyo sida dadka deegaanka ula dhaqmi lahaayeen dadka socotada ah ee soo booqda gurigooda si ay u caawiyaan dhaqaalaha maxalliga ah ee magaalada Muqdisho. Battuta waxa uu intaasi ku daray in magaalada Muqdisho uu ka talan jiray suldaan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Abu Bakar ibn Sheikh al-Umar. suldaankani asal ahaan waxa uu ka soo jeeday Berbera. Berbera waa erey qadiimi ah ee lagu sifeeyo awoowayaashii dadka Soomaaliyeed.
ibnu qalduum 1332 ilaa 1406 waxa uu ku xusay buugiisa in magaalada muqdisho ay tahay magaalo aad u weyn. waxa kale oo uu ku andacooday in magaalada muqdisho ay ahayd mid aad u dad badan oo leh ganacsato hodan ah. magaaladan waxaa ku badan hilibka, qamadiga, shaciirta, fardaha iyo miro badan. waa meel aad u qani ah. sida miraha lulka mawjadaha badweynta muuqata dhexdooda sida miraha lulka mawjadaha badweynta muuqata dhexdooda saldanada ajuuraan ee muqdisho waxa ay u dirtay dalka Shiinaha danjireyaal si ay u sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed, taasoo u abuurtay Soomaalida inay noqdaan jaaliyadii ugu horeysay ee Afrikaan ah ee abid laga diiwaan geliyo dalka Shiinaha. Soomaaliya waa wadan taariikh iyo qab aad u sareeya leh. waxaana ugu caansanaa Saacid Muqdisho oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo cagaha soo dhiga dalka Shiinaha. waana danjirihii ugu horeeyay ee Soomaaliya xilligii kacaankii boqortooyadaha ee Soomaaliya. soo noqoshadii boqortooyadii Yongal oo ahaa boqorkii saddexaad ee boqortooyada Ming ee dalka Shiinaha 1368 ilaa 1644 ayaa diray mid ka mid ah maraakiibta ugu waaweyn taariikhda dalka Shiinaha si uu ula ganacsado saldanadii ajuuraan. doonida oo hogaaminayay Hao Muslim Sin He oo ahaa nin caan ah taariikhda dunida hore ee dalka maanta loo garan og yahay Shiinaha ayaa timid Muqdisho. waxayna ku soo degtay xeebta ama dekada Soomaaliya ee qaybta Muqdisho. waa markabkii ugu horeeyay taariikhna ku leh Shiinaha oo Muqdisho lagu soo shareeciyay. maskaxdeena isu geeyay muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeena isu geeyay magaaladeena qurxiyay sidii muraayadoo kale magaaladeena qurxiyay sidii muraayadoo kale sida miliicda oo kale maanta adduunka ugu muuqataa sidii miliicda oo. waxaa weheliya markabka oo siday dahab, beeyo iyo maryo. Vasco da Gama oo soo maray magaalada Muqdisho qarnigii 15aad ayaa xusay inay ahayd magaalo weyn oo ay ku yaaliin dhismayaal leh 4 ama 5 dabaq oo dhaadheer iyo daaro waaweyn iyo masaajid badan oo leh minaarado. qarnigii 16aad Dorte Barbusa waxay xustay in maraakiib badan oo ka yimid boqortooyadii Cambaaya ay u dhoofeen magaalada Muqdisho iyagoo wata iyo dhir udgoon, taas oo iyaguna loogu bedelay dahab, shumac iyo fool maroodi.
magaalada imika qaraxa iyo daryanka rasaastu daashatay waxay ahayd marinkii ugu muhiimsanaa ee Afrika ahna xarunta islaam ee abid ugu horeysay ee laga yigleelay badweynta Hindiya. Barbosa ayaa sidoo kale iftiimisay hilibka, qamadiga, shaciirta, fardaha iyo miraha kale ee ku badan suuqyada xeebaha dhaca Soomaaliya, taas oo hanti badan u abuurtay ganacsatada Muqdisho iyo kuwa kale ee caalamka ka kala yimid. Muqdisho oo ah xarunta warshadaha tolidda toobka ee loo yaqaanay Toob Banaadiri, dhar kuwa ugu qaalisanaa ee laga iibin jiray suuqyada Masar iyo Suuriya. sidoo kale magaalooyinka Marka iyo Baraawe waxay ahaayeen marinka ganacsi ee looga dhoofin jiray Mombasa iyo Malindi, iyadoo halkaasi looga ganacsan jiray dahabka Kilwa. ganacsatada Yahuudda ka yimid Hormuz ayaa iyaguna keenay dharkoodii Hindida ahaa iyo midhihii ay keeneen oo ay markaasi xeebaha Soomaaliya si ay uga bedelaan hadhuudh iyo alwaax. sidoo kale Soomaaliya waxaa laga dhoofin jiray alwaaxda imika iyada loo soo dhoofiyo. sidoo kale waxaa xusid mudan in qarnigii 9aad Muqdisho xukumi jirtay boqortooyadii Saraabin ee isku maamuli jirtay ilaa dhulka Faris. Farisiyiintuna waxa ay ka mid ahaayeen dadka ku noolaa magaalada Muqdisho, taas oo imika faraaciin ku reebay Soomaaliya. kuwani waa magacyada salaadiintii soo maray hoggaanka sare ee Muqdisho. 1 Abu Bakar bin Faqar ad-Din, 2 Ismaaciil bin Muhammad, 3 Abdurrahman bin al-Musaacid, 4 Yusuf bin Saacid, 5 Sultan Muhammad, 6 Rasuul bin Ali, 7 Yusuf bin Abi Bakar, 8 Malik bin Saacid, 9 Sultan Umar, 10 Zubayr bin Umar. qaybta koowaad ee aan barnaamijkan ugu talagalay inaan magaalooyinka Soomaaliya taariikh kooban ka bixiyo halkan ayaan ku soo gabagabeynaya. waxaa inoo xigi doona mid kamid ah magaalooyinka dhaca dhinaca xeebaha Soomaaliya ee loo yaqaano Warshiq. taariikhdeedii hore iyo cidda xukumi jirtay ayaanu ka warami doonaa qaybta labaad ee barnaamijka. anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinayay. hadday tahay markaagii kugu horeysay aad ina soo booqato rukumo channelkanaga si aad uga mid noqoto daawadayaashanada. inta ka horeyso nabadgelyo.